Bismillaah, Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteena, waa mar kale walaasheena Safiya Xubbi oo soo laabatay muuqaal cusub inay wado. Sorry asxaabey, maalmahan haddana muuqaal wax la dhaha ma soo dhigin, waa iska yara mashquulsanaha. Sorry, laakiin markaan bis waaye maalin walba si joogteen aan usoo dhigi doonaa insha Allah hadduu Ilaahay idmo. Ugu horeyn walaala channelka dadku cusub tahay subscribe noo saar haddaad hore noo waxaanu ku leenahay soo dhawow insha Allah. Qisadeena maanta halkan ay ka bilaabanaysaa. Waxay ahaayeen wiil iyo gabar. Maxaan ku yiraahdaa gabadha waxaa la dhahayay Xabsa, wiilkana waxaa la dhahayay maxaan ku yiraahdaa Umayr. Xabsa iyo Umayr ayaa la kala dhahayay. Waxay ahaayeen labo qof yaraantooda isjeclaa oo maxaan ku yiraahdaa la kala fogeeyay bay ahaayeen. Ayagoo yar isjeclaayeen, ayagoo yar maadaama isjeclaayeen Xabsa way guureen oo maxaan ku yiraahdaa magaalo kale bay degeen halka Umayr halkiisa uu degnaa. Sidaa darteed marka ayagoo 10 jir meelahaas ku dhow bay maxaan ku yiraahdaa ala kala guuriyay oo jacayl iyo maxaan ku yiraahdaa ciyaalnimona way jirtay laakiin labo qof isjecel bay ahaayeen oo maxaan ku yiraahdaa aad isku fahansan yaraantooda. Iskuul bay isla dhigan jireen iyo dugsi. Marka saa darteeda saaxiibo aad isku ugu dhow isfahmana way ahaayeen. Marka Xabsa way guureen, markay guureen kadib magaalo kale ay degeen. Saaba maxaan ku yiraahdaa ku kala fogaadeen ilmaha way yaraayeen wax telefoon ama aysan haysan. Saa darteeda marka maadaama ayaga ay kala guureen maxaan ku yiraahdaa gabadhi dugsi sare way dhamaysay asna sidoo kale jaamacadii ba maxaan ku yiraahdaa hal meel noqotay wadankii jaamacadda loo geeyay ayadana jaamacadda loo geeyay. Marka saa meeshii ay isku barteen ilaa dad hore isku yaqaan yaraantooda bay ahaayeen. Marka jaamacaddii isku barteen oo maxaan ku yiraahdaa isku sheegeen hay aniga Xabsa ahay oo soo Umayr matid meeshii bay isku fahmeen. Meeshii markay isku fahmeen kadib adiga in badan bay wada socdeen isjeclaayeen wada socdeen jaamacaddii bilow ilaa iyo dhamaadkii. Waxay ahaayeen labo isjecel oo wada socda bay ahaayeen labadooda maasha Allah. Maadaama meeshii ay maxaan ku yiraahdaa jacaylkooda saaid uu ku noqday kadib jaamacaddii markay dhamaystay Xabsa gurigoodii bay imaaday. Waxay sheegtay wiil inay isjecel yihiin oo Umayr la dhaho. Asna gurigoodii buu tagay wuxuu yiri gabar baan isjecelnahay Xabsa baa la yiraahdaa. Markay saas yiraahdeen kadib labadooda Xabsa aabaheed wuxuu yiri anuu intaad maqneed baan wiil balan ka qaaday marka gabadheedii wiilkaasi baan ku siinayaa buu yiri. Gabadha waa aad bay u murugootay, waxay ahayd gabar baariyada waxay dhahday garan weyday. Marka waxay wacday Umayr bay wacday waxay tiri Umayr miyaha ani aabahayga ba wiil maxaan ku yiraahdaa intii aan jaamacaddii wixii aan ku maqnaa ba wuxuu igu jiri wiil baan ku siiyay. Marka saas bay wax u jiraan bay tiri. Umayr wuxuu yiri anuu saayidan ku jeclaa anigoo yaraan ku waayay haddana anigoo weyn anigoo arkay in la iga qaato ma ogolaanahay. Jacaylkeen si waliba maxaan ku yiraahdaa labadeena aabe iyo hooyo aan ugu dhaadhicino waa inaan ka dhaadhicinaa buu yiri. Marka iyada waxay tiri aniga aabahayga si kasta waxaan ugu dhaadhiciyay aabahay wax kama dhaadhacayaan Umayr maxaa noo sameynaa anaga. Umayr wuxuu yiri anigaa soo baxayo aabahaagu u imaanayo. Umayr wuu soo baxay wuxuu imaaday maxaan ku yiraahdaa safar buu soo galay wuxuu imaaday guriga Xabsa wuxuu yiri aabo gabadhaada anigaa jecel aniga jecesha aniga qof xun meehi oo ku dhaqanaya wax waliba ay u baahan tahay waa siinayaa gabadhaada aniga ay jeceshahay aabo gabadhaada haddaad adiga aad jeceshahay aabo gabadhaada igu dar. Aabii wuxuu yiri anuu balan aan qaado waligeyga ma burburinin haddana ma doonayo inaan burburiyo. Marka haddana ani balan inaan burburiyo diyaar uma ihi gabadhayda iyada iskuma taliso waa loo taliyaa. Adigina gabadhayda farxadeeda meesha ku jirta ima tilmaamaysid aniga maxaan ku yiraahdaa adigoo nabad qabo iska tag buu yiri aniga gabar adig kuma siinaye. Wiilkii aad buu u qiirooday asagoo yaaban oo
talo farahiis ku jiran buu kasoo tagay guriga, laakiin keligiis soo bixin. Wuxuu yiri Xafsa aabbaha hadduu yiri farxad gabadheeda aniga aqaano oo maxaan ku irahdaa oo bataatan uusan doonaynin aniga iyo adiga inuu isku daro oo balantiis uu suu balan u qaado u oofiyo aniga iyo adiga jacaylkeena uu burburinayo. Anaga maxaa diiday gurigeena anaga inaan dhisano maadaama waalidkii anaga loo baahnaa in guri noo dhiso oo saa u hadlay balan dartiisa mustaqbal uu maxaan ku irahdaa u burburinayo anaga iyo adiga haddaan dhisano aniga iyo adiga maxaad ka qabtaa. Waxay tiri ani aabahayga waan jeclahay, wuxuu jeclaadana waan jeclahay maadiga deysid. Cumar wuxuu yiri aniga iyo aabahaaga waa inaad mid doorataa, aniga oo ku jecel mustaqbalkaaga ah ayaad albaabkaad iga saaraysaa waxaad dhehaysaa aabahayga ayaan aadaa iyo maxaan ku irahdaa aabahaaga baad dhehaysaa aabbo anigu ku jeclaa laakiin mustaqbalkayga inaan dhistaan diyaar u ahay wiilkan aan jeclahay. Wuxuuna waa guur laba qof isku faraxsanayna guurku kuma wanaagsana. Marka cidaada kasoo tag aniga isoo raac aniga ku jecel buu yiri. Gabadhii waxay samaysay garan weyday markaa.